horta waxaan u mahadnaqayaa ciidanka debdemiska iyo janankoodaba waxaanan mar labaad u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha qaybta bariga guddoomiyaha waaxda gacanlibaax ee dowladda hoose boqorkii ummadda isna bartan jooga iyo maxamed oo arrimaha gudaha waddaniya waxaan ka xaal siinayaa anigoo faamiliga ka tirsan raaligelinna aan ka bixinayaa runtii dhibtaa ciidanka debdemiska loo geystay waa iska dhallinyardee caadifadootay geeri baa meeshan timid marka xanuunka geerida iyo nafhurnimada aad ciidanka bulshadaad ugu shaqaynaysaan ku ilaawa dhibta idin soo gaadhay marka badbaadiyaasha bulshada idinku tihiin aniga dee damqasho gaara igu haysaa geeridani inanta labada ciyaala dhashay walaashay baa dhashay awoobaan carruurta u ahaa gurigayguna wuxuu jiraa in ka yar 10 tallaabo ciyaalkana dee waan saaka ugu dambaysaba waan arkayey markaa de xanuun kaley ayay leedahay ilaahay baa dee qadaray qadarta ilaahay lama baajin karayo waa laga hawlgeli doonaa baadhiddana dee bilayskaa wada fariinteedu wuxuun bay tahay maha xaafaddan oo keliyaata ciidanka debdemisku dhib badan bay qabaan waxay ku qabaan dirawaliinta waxay ku qabaan dadweynahay u shaqaynayaan dee ciidanka debdemisku ilaahay nafta dadka gelinaya maahee haddee masiibadu ka hor dhacdana dee ha lagu samro oo dhibta iyaga dib ha looga daayo hadday ka hor yimaadaanna de ha loo mahadnaqo dadweynaha somalilan gaar ahaan dadka caasimaddana waxaan bartan ka farayaa inay gawaadhidaasi markay hoonkaa maqlaan sida dunida dee standarka caalamka de xeerar baa ka yaalla sharciyaa ka yaalla qofka u bannayn waaya badbaadiyayaasha bulshada dariiqa dee waxa ku dhaca xukun baa ku dhaca dacwad baa lagu ogaa dowladdaa tallaabo ka qaada bal inta shuruuc laga soo saaraya baarlamanka aanu ka soo saaraynana waxa muhiima in dadweynuhu taa ay ku baraarugsanaadaan dee aad iyo aad baan idinku wada mahadnaqayaa saaad noola wadaagteen dhibta aniya boqorkuba oo faamiliga waxaan ilaahay ka baryaynaa wanaag badan aad iyo aad baan bacda saxaafadda saab iyo mm t v-na u mahadsan yihiin oo bartan noogu yimid intan buu de qadarku qornaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa bulshada somalilan oo dhanna inuu inoo badbaadiyo innagana ilaahayna badbaadiyo dhallinyarada xaafaddana mar labaad waxaan ka codsanayaa dhibaatadaasi dhowr marna debdemiskuu naga sheegtay aynu dhowrno debdemiskeenala shaqaynayaa wixii kale xaafaddu qorshayeel u baahan tahay wax hadda xukuumad lagu dhaliilayo wax aan odhanno waxaasaa la samaynaya maahe qorshayaal ballaadhan baa nooga yaalla meelaha koowaad ee mudnaanta maayirka caasimaddu siinayana guddoomiyaha ay ka wada hadleen dhowr marna ee boqorka ay ka wada hadleenna xaafaddan baa ka kow noqon doonta insha allahu isagana ilaahay xilkaa ku asturo annagana ilaahay ayna wada asturo aad iyo aad baad u mahadsantihin wasalaamu calaykum anigoo ku hadlaya afka magaca ciidanka debdemiska qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan tacsi tiiraanyan loo diraynaa qoyskii qaraabadii iyo ehelkii ay ka geeriyoodeen carruurtii hadda mirara ka hor aanu halkan meydkooda ka saarnay gurigan dabku qabsaday ka ciidan dabdamis ahaan waajibkayga waannu ka gudannay waxaanan qabaa dadweynaha xaafaddu inay qayb ka mida gubashada guriga ay ka qayb qaateen waayo ciidanku markuu yimi goobta waxaanu ku bilaabay shiid waxaa naga dhaawacmay askar ka mida ciidanka oo hadda cusbitaalka ku jira dadweynaha waxaan kalu maranayaa farriin ah inay ciidanka la shaqeeyaan gubashadu way timaaddaa oo wax ilaahay keeno dhimashaduna way timaaddaa ilaahay baa keenaa ciidanka debdemiska qaranku waxaa 24 saacadood heegan ugu jiraa badbaadinta naf iyo maalba haddaba dadweynaha fariinta halkan waxaan uga faa'iidaysanayaa dadweynaha ku dhaqan caasimadda hargeysa inay ciidanka debdemiska qaranka la shaqeeyaan oo ay isku garab taagaan howlgallada ay ku jiraan sidoo kale halkan waxaan ugu mahad celinayaa ciidamada booliiska oo iyaguna noogu yimi goobta nagalana shaqeeyey iyo xildhibaan barkhad oo isaguna goobta noogu yimidi dhammaan dadweynaha xaafaddana aad baan ugu mahad celinayaa intii dambe way nala shaqeeyeen
sidoo kale waxaan halkan fariin iyadana u marinayaa wadayaasha gaadiidka oo markaan soo soconno waddooyinka inay qaataan awaamiirta amba dhiilada ciidanka damiska qaranka oo ah inay banneeyaan waddada taasoo aan micnaheedu yahay inaanu badbaadinayno naf iyo maal sidoo kale wadayaasha waxaan ugu baaqayaa amaanu ku amraynaa inay banneeyaan waddooyinka markaay maqlaan dhiilada ciidanka damiska qaranka dadweynaha sidoo kale waxaan u sheegayaa nambarka ciidanka damiska qaranka iyo nambarka booliiska way isku khaldaan dadweynuhu inta badan dadweynuhu waxay garaacaan lambarka ciidanka damiska qaranku waa 990 24 saacadood wuu furan yahay mar lama waayi karo xilligaad soo garaacdaanna waa laga jawaabayaa sidoo kale ciidanku waxay heegan ugu jiraan inay idin badbaadiyaan dadweynaha xilliga aad soo garaacdaan iyaguna jawaab baad ka helaysaan markaa dadweynaha waxaan ku baaqayaa inay nambarkana ay iska hubsadaan oo nambarka ciidanka damiska qaranku yahay 990 goobta tacsiibaa taalla tacsidaasaan anaguna la wadaagaynaa qoyska ka ciidan damis ahaan waajibkii nagala gudboonaana waanu ka gudannay dadweynahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa halkan aan ku sugannahay waa xaafadda daami oo caawa ay masiibo ka dhacday waxaan marka hore ka tacsiyadaynaynaa carruurta yaryar ee jaahilkaa ee ku geeriyootay goobtaa dabkuu ka dhacay waxaan leenahay waalidkii dhalay ilaahay samriye iimaan ha ka siiyo iyo dhammaanba bulshaweynta xaafadda ku nool waa masiibo qaran waana waa qadar ilaahay uu qadaray qadarkana cid ma joojin karto laakiin waxay gabadha carruurta dhashay way ku jirtay guriga ninka carruurta dhalay uu joogay uu soo booday dabku hoosta ka dhashay muu hayn dabku korkuu ka dhashay iyo geedkaa baxrasaafkaa tiirku ku beegayey dabeeta ciddii soo yaacday istiri bakhtiya xarkii laydhkoo ololaya ayaa markiiba labada guri isku tallaabiyey dabeetana ninka carruurta dhalay markuu cabaado isiri isku tuur inan baa ku dhagay xaraare layidhaahdo qabtay anna inantaan qabtay markaasaan xasuustay inuu joogaan islaantii inankii carruurtii yarada agoon tahayd wixiina jiingadan xagga dambe ka daloolinay waannu ka saarnay laakiin dabdamiska in badan waannu la hadnay dee jidgaajaana mar dambe oo dabkii korka ka dhashay guryihii kale sandaqadii u tallaabay oo sandaqadii kale uu dhiibay ayay noo yimaadeen waxaan joognaa xaafadda daami oo caawa dab ka kacay runtii waa masiibo dabiici oo runtii soo noqnoqotay in badan waxaan marka hore tacsi tiiraan la wadaagaynaa annaga oo ilaahay uu qalbigayga ogyahay dareenkayaga noocuu yahay waalidiintii ay kaga geeriyoodeen caawa masiibadaa dhacday labada ciyaala ilaahay waxaan uga baryaynaa caawadna khayr qaba ilahay inuu siiyo labada waalid qalbigana uga reebo sabriyo iimaan saadiqana ilaahay ka siiyo iyaguna saqiir bay ahaayeene in ilaahay jannooyinkiisa ku casuumo runtii in dhoweydba dabkan waa wax soo noqnoqonayey waa wax dhaca xilliyadanoo kale dabeelaha dhaca oo wax iska yimaada xaafaddani sidaa la sheegay way ka dareen duwan tahay guud ahaan bulshada reer hargeysa ama somalilanba waxay u baahan tahay talo guud oo qaran in laga yeesho xaafadda daami si dadka sida korokorta isku saaran loo kala qaado markay dabkanoo kale dhacana ay u kala badbaadaan imanka hadduu dabkaasi in yar sii socon lahaa dee ay ummaddan baa wadaguban lahayd waxaan u mahad celinaynaa ciidamada kala duwan ee qaranka booliska oo amnigooda sugay runtii ciidamada demdemiska oo iyaguna soo gurmaday inkastoo jidadku ay xumaayeen haddana soo gaadhay waajibkoodiina ka gutay iyagana waa u mahad celinaynaa dowlada hoos ahaan iyo dowlad ahaan iyo xisbi ahaanba in layska kaashado xaafaddan ayaan caawa soo jeedinaynaa si aynu uga baxno oohinta hooyooyinka habeen walba dhacaysa ee kala duwan waanu iman doonnaa xisbi ahaan annagu halkan wixii aanu ka qaban doonnana ee aanu ku tari doonno qoyskaanana waanu keeni doonnaa halkaa aad iyo aadna waan uga tiirayaansannahay qabnaa waanu ka murugaysannahay carruurtaa ku dhimatay dawlada hoos ahaanna waxaanu ballan qaadanayaa insha allah bilmiya kaliim jawaab degdega in beri aroorta subaxa laga soo bixiyo anagoo ka wakiila dawladda hoose goobjoogna ka degmadana ka mas-uula maayarka iyo maayar ku-xigeenka iyo xogeeya waxaan ka codsanayaa aroorta cagooda inay halkaa ku yimaadaan aroortana jawaab degdega waa la heli doonaa ubadkaa
waan la murugoonnay qoysaskoodii iyo ciddii wax ku noqotayba xaafaddan daami waxay u baahan tahay gurmad ballaadhan qoys keliya ma degana 12 waxay degan yihiin 12 mitir ee bilaadanka kala degan yihiin waxaa degan 10 qoys baa degan laga soo gurmadaan leenno xukuumadda sare iyo ta dhexe iyo ta hoose iyo ta sareba waxaan leenahay degdeg ha loogu soo gurmado xaafadda wax laga qabto hala kala raro intaasaan anigu ku wacyigelinayaa horeyna masaajidka Nasruddin baan uga yidhi imikana waan ku soo celinayaa dadkaanad gudaha iyo dibadba in loo soo gurmado oo dawladdu u soo gurmato masaakiinta loo soo gurmadaan jecelahay waana ku baaqayaa arrintaas sida ugu dhaqsaha badan la jawaab degdeg in laga arki doono